maamulka degmada Quljeed ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ay degmada ay ka wadeen hawlgallo isugu jira jidbanaan iyo waliba duminta guriyihii hore duuga noqday. hawlgalladan ayay sheegeen maamulku inay kor ugu qaadayaan bilicda degmada Quljeed, waxaana arrintaasi faahfaahin dheer iyo warbaahinta ka siiyay maayirka degmada Quljeed Maxamed Hodoon Cismaan, waxaana uu ka dhawaajiyay degmada Quljeed oo maanta wajigii hore ee muxuu ahaa hawshii aan ku jirnay 10 cisho wajigii hore oo naga soo gabagabooday waad soo aragteen wadooyinkan bixinay waa 7 wado oo wala marin oo xidhnaa ayaan bixinay hal wada noo hadhay halka wada noo dhiman wixii han dhul aqal guriyo duminay guriyihii gargada ahaa ee hore waxaan duminay guriyo ku dhow dhowr saddex ee duminay waxaan kaloo duminay كنيفيو مسؤول كجري ودوينك أو يكون محوها إلا سقالي لا تن مسؤولا يعني يكون دمني حشيشكي عند دمني بروان قارني برنو وياله وحاسبوج جلبات بنقدونا وحنا دمني دول وحنا جلش شقيي أديات ومن هاد علنية دمدا Quljeed شعب كنول يعني أديات ومن هاد علنية هل شخصي oo inta u shahawadna han ku xidhnay dantaa guud oo naga hor yimid total ma jiro wax gargida oo dambe waxa magaalada ku haray maanta oo degmada Quljeed ku yaala waa koob iyo 20 guri oo gargida ku yaala koob iyo 20 ka guri ee gargida ku harayna muddo aan u qabanay inay muddo guriyaha kaga baxaan wixii kale ee noo hadhan waa waxyaabo kale oo badan oo noo hadhay way jiraan insha Allah waxaan qaban doonaa xafiiska labaad baan qaban doonaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhalinyaradii iyaduna iska wuxuu qabsaday hortama nagu kicisay ee nagu la bilowday dhalinyarta ahaa ee degmada Quljeed ka soo jeeday ururka dhalinyarta horumarta degmada Quljeed ahaa iyaguna oo horeeyba baraarujintan lahaa hawsha annaguna wixii muxuu ahaa iyaga ka taaroonaday muxuu ahayn qaban karin ayaan anagna ku darnay oo sida cagaftii oo dawladda hoose Boormayna soo saysay shidaalkii oo la naga bixiyo muxuu ahaa qolada naga bixiyeen cilmi kabaal foundation qurba joogtina wan iyaguna waxaan la joogay gudoomiyaha qurba joogta aad buu isaguna noogala shaqeeyay xagga talada iyo muxuu ahaa aqliga iyo maskaxda iyo muruqaba aad buu isaguna noo gacan siinayay dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Quljeed oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay hawlgalladani kor loogu qaadayo bilicda degmada Quljeed. magaalada Quljeed iyo maamul garab jooga odayaal gudoonsada wixii tala la soo gooyo garay dumar howlooda la tago gabi baloo sheego dhalinyaro waxay gulfiimaad guudka kaga booda dhammaanteen gacmaha la isqabsaday oo la isku wada guuxiyay gargadaha inaga dumiya iyo yahay go'aankii gudida degmada Quljeed ee ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Maxamed Hodoon iyo odayada degmada gudida isku yihiin oo ahaa hormuudkii dhalinyaradii hawlgalka Quljeed ka bilaabay runtii ay mudan yihiin in shahaado sharaf la siiyo waxa kale oo aan iyagana u mahad celinayaa ugu horeyn cid kasta oo hawl ka geysatay degmada Quljeed. waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.